madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa warqad uu soo saaray waxa uu ku hakiyay lacag 10 milyan gaaraysa taasoo 2018 lagu qabtay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho lacagtaasi ayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa uu sheegay in dib loogu celinayo Imaaraadka Carabta oo lacagtaasi awalka hore lahayd waxaana madaxweynuhu oo sheegay in lacagtaasi la doonayay in dalka lagu burburiyo sidoo kalena qasnada dawladda aan laga bixin karin ra'iisul wasaaraha ayaa dhankiisa fasaxay lacagtaasi sheegana in dib loogu celinayo waxa uu sidoo kale raaligelin ka bixiyay dhacdadii ciidamadu ay ku qabteen lacagtaasi iyagoo markaasi sheegay in lacagtaasi si sharci darro ah in dalka loo soo geliyay haddaba markii warqadda madaxweynaha ay soo baxday kadib ayaa bulshadu aaraahadooda siyaabo kala duwan uga hadleen dhinaca baraha bulshada iyadoo markaasi hadal heel badan aad u dhaleysay haddaba qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan Muqdisho ayaynu weydiinay sida u arkaan in lacagtaasi dib loogu celiyo Imaaraadka Carabta iyo in qasnada dawladda lacagtaasi lagu hayo ilaa iyo sifo sharciya lagu bixinayo Imaaraad cadowgeena koowaad way 30 sanadood baan ka shaqeynay cadow kale oo aynu leenahay ma jiro aan Imaaraad ahayn ma doonayo Soomaaliya horumarkeeda ninkii caqli leh waa garanayaa Soomaaliya in Imaaraad ay cadow yahay barwaaqada Soomaaliyana uu hor taagan yahay Imaaraadku maanta in la yiraahdo dadkii madaxda qayb ka mid ay tiraahdo aad baan ugu mahad celinayaa mahad naguma leh waa cadowga yaga koowaad badaasaana kala celisay waaba duulaan baanuba ku qaadi lahayn toosa lacagtana wuxuu ugu talagalay inuu ku burburiyo Soomaaliya anigu waxaan leeyahay dadka masaakiinta oo abaaruhu hayaan hasiyo madaxweynuhu xaq bay ugu leeyihiin ra'iisul wasaaraha waxaan leeyahay ra'iisul wasaare deji waddanka deji waxaa lagu idmaday in aad doorashada abnigeeda laakiin laguma idmin in Imaaraadyo iyo Kenya iyo Djibouti hadba aad war nooga keentay ra'iisul wasaaraha waddanka tanaga ra'iisul wasaare noo tahay waddanka deji xukuumadda xilgaarsiinta in looga dambeeyo ana hawshan qaba wax kasto maanta maslaxa ay u aragtana la wado maadaama madaxweynuhu siyaasad isdiidan ay jiraan oo musharaxu yahay anigu waxaan qabaa madaxweynuhu 4 sano uu 5 sano waddanka soo hogaamin hayay waxa weeye waad ogtahay oo madaxweynaha waxa loo doortay inay ilaa raas Gambooni ilaa maxay ahayd xuduudkii aan la leenahay dalka walaalaheena Djibouti inuu Soomaaliya isu keenaa la rabay maantana waxaad ogtahay inay sayidka iyo madaxtooyada horteeda la isku hor fadhiyo aad ogtahay ninkii la rabay inuu waddanka dhan maamulka ku fidiyo oo waddanka maamulka gaarsiiyo markaan waxaan leeyahay hawsh xilligan kala guurka maadaama madaxweynuhu musharax yahay ra'iisul wasaaraha looga dambeeyo Imaaraadkuna horay horta khilaaf uu soo jiray inaga Imaaraadka laakiin haddii la xalliyo waa waddan islaam ah Eritrea oo aan islaan ahayn aad ogtahay oo go'doona aad ogtahay inaa hadda waddanka koowaad ee maanta Soomaaliya xiriirka la leenahay markaan wax dhibo uma arkin inaan Imaaraadka oo dal muslimiin oo jaamacadda Carabta islaanahay inaa hadda aan wax dhibaato ma arko hogaaminta maanta inaan ra'iisul wasaaraha looga dambeeyaan qaba madaxweynuhu meel fadhiisto musharax uu noqdo wixii Ilaahay uga calfana oo arko ra'iisul wasaarahana hadday waddan kala tahay gudi iyo amniga hadii taban aan ra'iisul wasaaraha looga dambeeyaa qaba ma xasanta horta lacagtaas in la joojiyo oo lacagtaas aan dawladdaas loo celin waa aaminsanahay madaxweynaha waa ku taageersanahay sababtoo tahay lacagtaas waddanka waxay ku soo gashay sifo sharci darro ah oo maaragtay waddadii saxda ahayd oo sharciga ahayd aan soo marin marka sifo sharci darro maadaama ay ku soo gashay lacagtaas kortabaan ay tahay in la joojiyo oo madaxweynuhu uu joojiyo waa ku saxan yahay ra'iisul wasaarahana waxaan leenahay مسؤول كلية ما أوضه إنه مارته وأصلا العكس عليو وأنا جوان وذا شرقة وقصة بحق العكس باللوجو علين كرا ما دام وسك كرتبان أي قصة قشي كتربان ودنك أي قصة قشي لغونا قبطي سياس درادد رئيس وزراء كل جسم أوضه إنه مارته ويرى هذا العكس وعلين هيا أو مارته دولة دي أصلا كرة اللي جلين هيا ويرى وعلين هيا دولة دي سكلا هيد العكس وإن سوى ذا شرقة أو وضع أقل أو لسلوقي هاي أو نظام محكمات يو مارتي صامرتي وإن العكس اللي عليا. runtii lacagtaas ayada ah waqti dheer beeta 2018 baa la qabtay waxayna ku socotay burburin Soomaaliya iyo dhibaataynta Soomaaliya si sharciya loo qabtay iyadoo sharci darrada ku soo gashay way taala shuruucda caalamiga ee lacag ku baxan bayna ku baxaysaa wax go'aan shakhsi leeyahay kuma baxayso ra'iisul wasaaruhu shaqadaas looma dirin doorashan ka sugeynay habsamile inuu qabto xilligan inuu Imaaraadka aniga raali gelin siinaya ama go'aan gaaraya wixii laba dawladood calaaqaadkooda ah ra'iisul wasaaruhu go'aankeeda ma laha
xilligeedana ma joogno hadda anigu waxaan qabaa wasaaruhu inuu lacagtaa ku qaldan yahay lacagtaa waxa soo saari kara madaxweyne cusub oo soo yimaada unbaa ka hawlgeli kara laakiin nin haddee labaduba ay haystaan wax lacag midna shaqo kuma leh wayna madaxweyne cusub ay sida loo dooran lahaa loo doorto wixii loo xil saaran ay ka soo baxaan sidii loo geli lahaa doorashada ka bacdi ninka la soo saara ka hela baa lacagtaa soo saaritaankeeda iyo bixitaankeeda shaqo ku leh madaxweynaha fadhiyaana shaqo kuma leh wasaaruhuna shaqo kuma leh haddii wax lagu dimanayo cilintaa uu celiyey madaxweynuhu waa ku mahadsan yahay inaan lacagtaas ayan lahayn nimankaas wasaara kaga dhacdo ninka la doonayaana inuu khalad doonayo xoolo uma hayna nimankaas annana xoolo nooma hayaan soo celintooda iyo waxooduna dadkii badnaayo oo loo celiyey ayagoo laftooda ay marayka la lahaayeen dhegaysaad wax ay wax ka qabteen male meel ay degeen oo wax ka qabteen ma laha waa un lugooya ayagoo dhan socota sidaa darteed isku tashadaan leeyahay soomaalida wallaahi haddaa dhihi lahaa arrintan arrin hadda ku habboon ma aha waddanka meel oo markaas wuxuu maraya qadcas uu maraya waqti markaas hadda wasaaraha iyo madaxweynaha isku dhegan yihiin arrintaas awgeeda ugu faa'iidaysanaya dalal oo badan oo cadow nala ah waaye imaaraadka qaraxyaal badan ay ka dambeeyeen oo markaas muqdisho ka dhaca saas darteed waxaan dhihi lahaa lacagtaasna lacag waddanka lagu dumin lahaa waaye waana la hakiyey wasaaraha waqtigiisa waa dhammaaday wax waad samayn kara heshiis cusboonaysiin kara ma heshiis gali kara ma laha wixii horaan loo galay madaxweynihii horeeta galay waqtigiisa asaga xataa ugu dhammaad ma qaban karo madaxweyne cusub markaas markuu imaado arrintaas la cusboonaysiin karaa buuggaasna furi karaa doodaasna arrintaasna waa arrin maxkamad iyo waxaas inay soo marto oo cadaalad u baahan waa lacagtaas sifo qalad ay ku imaado waddanka markay laabanayso la celinaayana waa in sifadii loo mari lahaa waa in la aadaa waa tan kaleetana macnaha wasiirka maaliyadda iyo ay arrintaas u taalaan in markaas uu ka hadla hadda heer wasiir wasaare uu arrintaas inuu ka hadlo meeshu uu midnaantiis hadda isgeeyey meel hadda isgeeyey ma ahayn meeshu hadda isgeeyey meel isgeeyey ma ahayn mana mudneen marka waxaan dhihi lahaa wasaare arrintaas ugu qaldan yahay xifaaltan kuu dheelaa xifaaltan adag waa la fahansan yahay marka arrintaa inuu dejiyaa fiicnaan lahayd arrin waddanka u fiicanna ma aha danta soomaaliyana uma fiicna saasaa dhihi lahaa insha allah laakiin waa madaxweyne wuxuu ka hadlay aragtiisu ka hadlay waa aragtay waddanka wuxuu geliyey madaxweynaheenna dhibaato u geliyey waxay ahayd carrada iska hor keenay waa aragtay hadda wax magaalada kala socda ma lahan haddii dhaqaale hoos u galay wax walbana hoosay galeen amnigii xataa wuxuu galay qalqal galay marka waan ku raacsanahay inaan macnaha madaxweynaha ay naga qabtaan